جبنا برنامج كان بالله محاضراتك لو قلت لك قال دمرك هلسنكي نواحي كنا يدك دعوة يتبع كحرا برنامج أصلا بشيء مرة قبته سيدا واجب كانوا تهاي أمرك الإسفار وما أنت الإسكار بخاصة دمرك الإحداث أما سيدا دمرك واجب كيموتها الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena billaha muhaadaraadka loogu talagalay dumarka Helsinki iyo nawaaxigeeda ku nool iyo dadka dacwada intaba ku xiran barnaamijkaas oo bishii mar la qabto qaybtiisii labaad qaybtii hore Sheekh Abdul Hafidullah ayaa noo galay muhaadaradiisii humumtu kaga hadlayay qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa qadiyad muhiim ah oo kamid ah isla qadiyadaha dacwada ku dul wareegaya waana qadiyada loo yaqaano al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar khaasatan fi haqq an-nisa sida waajibka uu tahay in amarka la isfaro وما أنتنا الإسكار بخاصة دمرك الإحداث أما سيدا دمرك واجبك يموتها وحاولتها ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى إنه نغفر ديالي فريضة عظيم كيوين إنه هناك الإسفار وما أنتنا الإسكار تأسوا يكون جرتو بالبالة الدونت أمد سارتها سيدا سوكلا يكون دموريسو حفظنت إلى علمت أمدني نرشيدا إيا الدينتيدا إيا ضمنمادا دعيتها waxaa kaloo arrinkaasi uu yahay mid ummadan ka ilaalinaya in halaag iyo dhumis ay gasho ay ku dhacdo ama ay halaagsanto waxaana la yiraahdaa mujtamaca hadduu ka tago qadiyadaas in xumaanta la iska reebo wanaagga la isfaro waxaa gudihiisa ku dhasha cudur ayaa gudihiisa ku dhasha cudurkaas oo ah in uu burburo mujtamacaasi dadka jiilka waliba khaasatan soo koraya ay baaba'aan isla markaana dhexdooda la soo galo oo halkaa la fasaxaadiyo maadaama aanay jirin cid xumaantii faris ee reebaysa wanaagina dadka faris culimadu waxay ku tiriyaan mawduuca al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar waxay ku tiriyaan ama lagu tilmaamaa inuu yahay rukniga lixaad ee arkaanta islaamka culimada qaar baa waxay ku tiriyaan inuu yahay rukniga lixaad ee arkaanta islaamka waxaana daliilkeeda ku tusinaya bilaa shaki in arrinkaas uu ku dhow yahay maxaa yeelay shacaa'irta diinta waxyaabaha ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ku caabudnay diinta ama istaagayso oo ma hirgelayso sidaasoo kale lagama ilaalin karo lagamana waardiyeyn karo dadka raba inay shacaa'irtaas diinta ku cayaaraan sidaasoo kale dadka sufahada iyo jaahiliinta duuflaalada ah ee mufsidiinta ah ee ummadda islaamka ku dhex wada gacantooda lama qaban karo ilaa la helo qadiyadaas ku saabsan wanaagga oo la isfaro xumaantooda iska reebo الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض كفاية فرض كفاية وحال إرادة هذه ذاتك قار أي سميان قار ككل وكدعي وهذا معها أرن هذه هبل وكتبه هبل كليس وكتبه وجود البابي معناها هو هذه ذاتك قار سميان قار كالواجب وكدعي معها قد يد سيدا صلاة يصوم كي وكل قفك هذو كتبه سيدا قار كالواجب واجب الواجب يعني ومع ذلك لكن مع ذلك سوى فرض كفاية أي إله سبحانه وتعالى مهمته إليها درتها وحكور مرية صلاة زكاة صلاة ولا توصيه
sidii nabigu loo tukado iyo zakadii oo loo bixiyaa waxa laga hormariyay qadiyadaas Allahu ma'ruf wa nahy 'anil munkar ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إلى وحي المؤمنين رد المؤمنين يقبلها مؤمنات بعضهم أولياء بعض يجعش أولياء يجعش أهلا وما حيث أوليائهم وأهلهم يأمرون بالمعروف ونهي الفريا وينهون عن المنكر حمان تسكريبيا ويقيمون الصلاة صلاة بيتوسينيا وسن الله تعالى لتكنيا ويؤتون الزكاة زكاة بمحنيا ويطيعون الله ورسوله إلهي رسولك سيطيعيا أولئك قواسا إلهي ونحرس الله سوف جديد مركز الصلاة الزكاة والبحي وحال لسهم فريق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أن ذلك أنه اسمه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وقت المامي إلى يتهي عمود الإسلام تير الإسلام إلى يتهي بل أركان الإسلام كميتك أقوى مركز شهادتين كلا قصوا تظل إلى يتهي ما يتهي مركز معناها لو صهر مري مركز معناها لو صهر مري ما يتهي وحن مركز شاكو كجري معناها لو صهر مري إلى يتهي باهد الله قبضرته iyo muhiimada ay lama huraanka u tahay qofka muslimka inuu arinka uu sameeyo maxaa yeelay noloshii iyo cibaadadii iyo hawlaha hadda la sheegay oo dhan ma hirgeli kara ilaa qadiyadaas la helo waxa kaloo ku tusinaysa muhiimadiisa in taxqiijintiisa ama xaqiijinta wanaagga la soo xumaanto la isku reebo in ay ku jirto maslaxada ummadda ay ku jirto in khayrkii uu banaayo markii la helo إن فضائشي وحيابه فضل بدنا أي صوت ظاهرة هذه لها هذه قد يدرس لها إن أي مارة حمانتي قرصوم يسوع قد يدرس هذه لها إن حمانتي قرصوم يسوع سيدو كلا قد يدرس ونقول نسفر حمانتي ونسكرها هذه لها إن مجتمع أفراد سخير اسمه قرقاسنا أي سنة ساحينا أي دين إلهي وجود ذلك وخير ونبو كيريا شرك أي مارة سكتوريا قفلتي يا هالمانكي iyo dhibaatooyinkii meesha ay ka baxayso iyo sharkii faraha badnaa haddii la waayo ummaddu inay tafaraar ku dhacayso haddii la waayo in ummadda qalbigeedu uu adkaanayo haddii la waayo in ummadda qalbigeedu uu dhimanayo soo ma jeedid sidoo kale haddii la waayo muhiimadda loo soo hormariyay ay tahay in sawdkii baatilka ahaa uu soo kormarayo xaqiina uu qarsoomayo in sawdkii baatilka ahaa uu soo durmarayo xaqiina uu qarsoomayo وأنا واقع مانتا قف كستا ومسلم هدو إيغو ميل والبا يدول والبا يدولد والبا يمجتمع والبا ووانا قول يسفرق لقوا يحمانتا والاسكربان لقده هوايو أي كود عشو وأنا واقع مانتا مدى بدن أيكم ربيهم سيدو كالي مهمة قوليه هاي وانا قول يسفرق مانتا والاسكربان مهمة يليه أوين أي إله سبحانه وتعالى وحو كحري ومضى الخير كذا إنه كجرا ركاس سجى الله بحري إلهي وعليه هاي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي سبحانه وتعالى قرآن بقوله كنتم وحاته خير أمة بدون قوة وخير بدن أخرجت للناس معك خير بدنته تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي بعد رمينا إسلام يا رسول كيس صلى الله عليه وسلم يا كتاب كيس يا رسول كيس يا ملائكتي يا بارك قيامي يا قدرك كذب نحمات تصفر يسار وانا العسكري بس ولهذا لا صالح عشان كل قد يدرس مركا إله سبحانه وتعالى وكحري فلاح ومضان يا الإيمان تيدا يا وناجي روح إلهي كحري مركا markuu ka hadlay arinkaas in khayriyada ummadda iyo waxa khayrku ku gaaraysa ay tahay wanaagooda isfaro xumaanta oo iska reebo ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku calaqay faraaxeena iyo liibaanta ummadda ay gaarayso in ay tahay markay u istaagto arinkaas marka hore waxa la yiri wanaagooda isfartaa iyo xumaanta oo iska reebtaan baa khayr ku gaarayay haddana waxa la yiri hadaa rabtaan inaad liibaantiina waxay ku xiran tahay mid adduunyo mid aakhiro inaad qadiyada u istaagtaan xumaanta iska reebtaan wanaagga isfartaa
إلهي وعليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا كان حلو وهذا كم النقطة ضد الأمة ومن صدق خير ويريس ومعلي خير كاس حاول ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن يذكر فرع حماتي كريمة مرقص إلهي وأولئك قواس أيها هم المفلحون لبان قواس لبان قواس أيها لبان مرك لبان هذا ربطان وحاول وإن قد يدرس له استاذوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر sidoo kale qadiyadaas oo loo istaaga oo qofka muslimka iyo mujtamaca muslimiinta iyo ummadda ay u istaagtaa waxa laga ammaan galaya cadaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala biidnillah waxayna cudurdar Ilaahay hortiisa bari laga tagay noqonaysa qofku inuu yiraahdo rabbi yow hawsha anigu waan soo gutay ama wixii waa soo guday qissa ayaa Ilaahay quraanka noogu keenay subhanahu wa ta'ala nimankii loo oran jiray yawm sabt reer bani Israa'iil ee laga xaaraantinimeeyay inay kalluumaystaan maalinka sabtida ayaa loo diiday imtixaan wuxuu ku dhacay markaas xeelad sameeyay qodii bay kani ka soo jeexeen kani markay ka soo jeexaan waa imtixaan wuxuu ku dhacay maalinka sabtida kalluunka oo malay banaanku imanay saboo cid maaragtay saa isaga yaacsan maalmaha kalena rafaad bay ka marayaan oo ay raadinayaan sidaa darteed bay marka khiyaano sameeyeen waxaan xeelada loo yaqaan xeelaysi waxyaabaha ummadda lagu kharibay bay ka mid tahay in diintii loo xeelaysto oo farsamo xaaraantii farsamo loo raadiyo waa meelaha halaaga iska soo jiro bad keli bay ka soo jeexeen kalluunku marka maadaama uu banaanka yimid maalinkaa sabtida soo socdo qofkii keligu soo raacaya meeshii ay dadkii weynaa iyo qoteen balligii weynaa ugu soo dhacaya marka ugu soo dhaawanaya markaasay maalmaha kale la baxa qadiyadii marka saddex qolay u kala baxeen dadkii qolo xumaantii samaynaysa oo wixii Ilaahay ka xaaraantinimeeyay u banbaxda oo xeelaysatay qolay noqotay qolo waxay u istaageen qadiyada al-ma'ruf wa nahy anil munkar waxaan iska daayay quraanka waa haram war Ilaahay ma banay war sidaan ka jooga war diinta Ilaahay xeelaysay ka daayay qolana waxay tii maxaa naga galay waa walba ogyihiin iyaga u taala waa ka haray Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadiyadu quraanka uu sheegay wadkuru hada xustaa ayuha ar-rasuul إذ قالت أمة منهم markii qoladii wax wacdinaysay mooyaan kuwi kale ka aamusan ay ku yiraahdeen lima ta'iduna qawman Allahu mulikum war maxaad ka galay balaayada dufa ku baahan alla bahalaagay maxaad u waalinaysaa ma iska daysaa aw amsa mu'adduhum ila adab shadid وعيرا قالوا معذرة إلى ربنا ولعلهم يتقون وأنهم واجب أن قدنينا وحنا واجب أن قدنينا إن إله سبحانه وتعالى بالرفض إله ارتسلت عذرا هذا وأنه واجب مكسر بحنها يجب الله شيئها ولعلهم يتقون dadku bani aadam oo antoomika marka wax u sheegto waxa laga yaabaa inuu xumaanti iska daayo sidaas ajir aad ku hesho wala Allah ma taqul arki loo sheeg waana ujeedooyinka waaweyn iyo faa'iidooyinka u leeyahay wanaagga bas xumaanta la iska reebo sharti ma hadiga laga qaato sharti ma hadiga inaad khasab qofka ku soo galaysid kaliya waajibki ku saarna aadaab iyo ixtiraam iyo tartiib u gulo intaas la'alla in qofkaas ilaahay bari dartaa uu ku soo hanuuniyo halkaas ajir u qaadaso إلهي بركم كشك يا آيات الدنباء وعيد فلما نصروا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إلهي بركم ما وشاك مركي قلبي اللوانين يا أنت سمعين وحي الوشاك إسكاللوسية والدينين إلى قاتان ووركي المغل وآيام اسكتك تيران إلهي بركم أنجينا الذين ينهون عن السوء كوي حمان تضدك كرهبي وان بالبادمي وواحد أولاتا مركب ضدك حمانتك كرهيس وناقة فرس إن أدينا نفتح عليه من بالوتا مركب عقاب إلهي هذه إلهي يكون بالي إلهي وحيد مركب قوة ضدك حمانتك كرهيس وناقة فرس وان بالبالي وأخذنا الذين ظلموا قوة ذنبيين وحن فقا وامنين قعد ألبا فقا من بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون عذاب رنبا إلهي كله كونوا قلادة الخاسئين باطلين شو مجد علماء واحد فسراني هذا كوي آموسنا الديني الوحوة الكفر إيه الله وصل هذا القادم إيه عذاب كود إهلاك وبكخة خيم إيه بمر كسر القادم وجبته يعني أوصل واسكع الدمر كم جاب صدق وهذا له هلاقي كوي له هلاقي على الوضع سو بجد
marka faa'iidaas ay leedahay qadiyadaas Allah wanaaga oo isfaro xumaanta oo iska reebo sidoo kale waxay amni ka tahay oo ka amni gelinaysaa in dadka dooflaalada iyo sufahada ay arrinka gacanta ku dhigaan oo ugu samado mujtamac uu ka sayr caliyo mujtamac dadka sufahadiisa adduunka khariba waxa adduunka khariba markii xumaanta la reebo wanaag la isfaro waayo mooriyaan baa ilaahay kugu keenaya markaasay dharkaaga iyo gurigaaga diiranaysaa sidii nagu dhacda soo martay laakiin qof walba hadduu qofka xiga qaban lahaa dhihi lahaa war ka joog war xumaanta iska daa war wanaaga qaado dhibkaa ma dhici lahayn arrintii waxaa la yidhi maya culimada keliya iskale wadaadku dadka xumaanta ha faro wanaaga ka reeb wadaadku wuxuu xumaanta fari karaa wanaagana ka reebi karaa inta ishiisu dhegtiisu maqdayso ishiisuna gaarayso laakiin waxaa qodan in uusan la joogin uusan ogeyn adigu aad kaga dhow lahayd oo haddii adigu aad fari lahayd wanaaga xumaantana ka reebi lahayd mujtamacu badbaadi lahaa laakiin markii la isfiirsado waxaa mujtamacii ka sayr caliyeynaya oo qabsanaya nimankii maaragtay sufahada ah nabiga cala salam wuxuu leeyahay walladii nafsi biyadi allihii naftayda gacantiisa ku jirta ku dhaartay lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani lmunkar xumaanta waad isfaraysaan wanaagana waa iska reebaysaan aw amase la yushakanna allah an yabcatha calaykum ciqaaban minhu uma tadcuunahu falaa yastajiiba lahu ama waxaa hubaal ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ciqaab idin soo diri doono ciqaab ilaahay ku saladi doono mooryaan madaxa ka garaac balaaya idin qaxisa kuwa idin dhiba uma tadcuunahu falaa yastajiiba lahu markaasaad yaa rab ilaahay naga qabad leedimana ajiibo ma isweydiiseen intaas ilaahay muslimiinta maanta aan baryaynahay maxaa ducadana loo aqbali lahay dadku markiiba wuxuu isleeyahay maxaa ducadada loo aqbali waayo ismaadan weydiin war wanaagii ma isfarteen xumaanta iska reebteen mujtamaci waa la isdhacay waad aragteen waa la sii kala durkaya waa la sii kala baxaya halkii jaaliyad baa 3 u kala go'aysa halkii qabiil baa 20 u kala go'ay ma isweydiinin maxaa keenay in la isnaco annagoo halkan awal hal taagan aan nasaarna oo hal maaragtay hal khaalid nalooda geliyey inaan kala tafaarno maxaa keenay xumaantana iska marayno wanaagana isma farqin waa ka xadiiska nabiga cala salaam sidoo kale in laga tago waxay sabab u tahay ciqaabka ilaahay u yimaada iyo sida hadda aan sheegnay ducadii oo la iska aqbali waayo nabiga cala salaam wuxuu leeyahay muruu bilmacruuf wanhu cani lmunkar qabla an tadcuu falaa yustajaab lakum warhoy wanaagga isfara xumaanta iska reeba inta aydaan ilaahay baryin oo aan leedin ajiibin ducadaada haddii la rabo in laga aqbalo wanaagga hal isfara xumaanta iska reeba sidoo kale haddii laga tago wanaagga la isfara xumaanta la iska reebo fawaaxishtaa badanaysa iyo xumaanta munkaraadkii waa soo badanaya waxyaabaha hadda aadka u badanaya la isweydiiye maxaa ka mid su-aalaha hadda culimada la soo weydiiye waxaa ka mid ah oo aadka u badan waliba dhinaca gabdhaha iyo wiilasha ka imaanaysa هذا آد قصة شعب هذا شيخ وكل ما صاحبها حوالي صاحب تنوي وطرارها كذبنا على وشي الماء كبارنا المية هذا ولي من نظن عن مارة عن روفتي والمريم مسوري دي كلام سؤال هذا آد كسكوي ديوان ولما بليران يوروب جوكتا آد كوصة بلطة إيو أربع على وشي يضرب من السقابين ما نسكن بهرين كلام goormadii la dhex dabaashay oo xaraantii la dhex galaa sheekha loo imanay maxaa waxaas keenay waxaa keenay xumaantiina la iskama reebayo wanaagii la isma farayo gabdhihii iyo mujtamacii maaragtay zinadii lagalama hadlayo war ikhtilaafkan isdhexgalka rag iyo dumarka isla goodaya baararka isla aadayo waa xaaraan lama oranayo aroosadii baa isdhex yaacsan yahay ilaahay ka baqa ma jirto saa markay dhici weyda marka fawaaxishkii baa badanaya fawaaxishadiina guriga kusoo galaysa maalinka dambe albaabka kusoo garaacaysa guriga وسؤالها هذا هو بضوي وهلتك أنا هؤلاء أنا ما يسمعها ولما هلك ما أغانيس وهلتك ما أغاني على غير أبا المهم مركز دأنا كريمين مركز صدق دور لقصر اللي كنت بين مركز على قبينه ويا حتى يصير تمن قال أنا عندكم سو شيء اسمه جفت هو عارف ماشي يصير تمن مركز لقاه والملا حتى الله يا رب حي المها سيدا وباشا اسكول كلا في الصدور الملا عليه هذا تذكر أنجراني برنامج المها ولا صعده اسكول كذا ناقص ولا صعده عاول مركو 8 بيحسب ساعات مركي ساعات قال 8 بيحسب اوتوماتيك وهاري بحي معناه ده حاول شخص كبير يخف 8 مركو قال مركو واحد واحد بدل مو لكن انا ما سؤال جينا هذا وانا سؤالها والله لو انا الاسكول بيكو ادى الشغل يكو ادى لكن واحد اسمه ما اسمه
marka waxa keenana waxa weeye khoti waa iyadoo laga tagay maaragtay arrinka laga tagay waxyaabaha laga faa'iido maxaa ka mid ah marka haddii wanaagga la isfarxumaantana la iska reebo intaasaan soo sheegnay oo dhibaato dhacday cagsigeeda iyadoo ay tahay waxa ugu weyn oo laga faa'iidayo waxaa ka mid ah in aad noqonaysid dadka ilaahay naxariistiisa iska leh ahlu raxma inaad noqonaysid ilaahay wuxuu leeyahay markuu maaragtay uu soo sheegay ulaa'ika sayarhamuhum allah wataan aayadda soo maray walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaa bacd ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلهي يحيي أولئك سيرحمهم الله هو سإله ابن حريصنا مركز آيات وحيد دليل تهي إن حريص إلهي لكو قارية طاعة إلهي يا شرعي صلى الله عليه وسلم خاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة إلهي لو ما قالوا يدير بين لو ما قالوا مسلمين بأنها إلهي والله حريصنا بس على الشغل الله لو ما قالوا maaragtay reer hebel baa ka dhashay laandheerana anigu reer hebel baa ka dhashay cadaab ma galayno maya qoraysh haddaad tahay iyo bani haashim haddaad tahay iyo bani fulaan aad tahay iyo shaqada aad ku jirtid iyo lacagta aad leedahay iyo jumhuuriyadda aad ka dhalatay iyo waddanka aad ka timid midna meel kuma geynayso naxariista ilaahay waxaa lagu gaaraa daacada ilaahay haddii nasab lagu gaarayo abijahal kuma jiraan naar kuma jirin isagoo qorayshi ah naar muusan galan وجد marka waxa lagu gaaraa waxay tahay waa naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu qofku ku maaragtay ayuu ku kasbanaya waxa kaloo kamid ah waxyaabaha wanaag uu leeyahay wanaag xumaanta la isfaro wanaag afar wanaag la isfaro xumaanta la iska reebo waxyaabaha ay leedahay waxa kamid ah ama waxyaabaha wanaag leeyahay waxa kamid ah in ay tahay sifooyinka dadka muuminiinta ah iyo gabdhaha muuminaadka ah sifooyinka ugu wanaagsan ay leeyihiin صفاتك إلهي القرآن كيسو كتن مامي هو أقوى ناسا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سيد عكسك صفاتك لتك أقواسي أي أيه لتك يدعيه صفات منافقين معناها منافقة صفتيسا ولتك صفتها وهذه لبدا لا يهوى وهذا سمين ويدي لا يكبر كل عيسى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف منافقين درك المنافقين يدمر المنافقات بعضهم من بعض واسليه ومحيتها صفاتهم وحال صفاتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وعكس ذلك حمامته أي إسفاران وواحد وحسبنا الله سماه سيدا هذا فيسبوك إذا روح إعلامنا واتساب كار صوع إعلام فنان هبل بمان تيمنا عاو باشا بادير مالك ساحلتي نماذا جلت برايا من مصطفى فينا وينهون عن المعروف حمانتي رهيبه والمساجد كاسكو تجين ضلكي وراء ماشي أصبحوا قفكي قالوا ولا صوصي عليها قبلني ليش أصوص سحرهم بيصوروا مقانسا قبلها والو مارك والو بدها ليش بارك عقلي قال يا رب وحسنك واخرنا وضدك صفات المؤمنين تاع بركه النبي عليه الصلاه والسلام مهمته ليه يعني لنا السنه مركه على الحديث يقول يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقفك يديك كبد المنكر اركو هكزولي غعنتيسا هدوسا أودين عرب كيسا هدوسا أودين قلب كيسا وذلك معركة أضعف الإيمان يعني عشرة بقول لي مرنا منكم منكرا وعامل ورقي الدمر شكل ورنا يسعى لما لو قلت لك إيه وحدتك فران كربا أما الركي لو قلت لك ما هو عام هارين كان قديرنا وصح علم ولا قبها هي صفات في عوال ربها هي هذا ما أرين كاو استاجية إن dadka wax farto wixii aad taqaano iyo aad farto wanaag xumaanta la ka karto ka horsaagayma marka afrad nas ayaa maaragtay haduu yahay xataa ka radinaysa marka asalaamay ninkii munkar arka gacantiisa ku suuliyo waa goor waa markii gacanta awood aad u leedahay gacantaada hadaad awood u leedahay inaad ku suuliso waad suulinaysaa haddii awoodii gacanta aad gaari weydo oo aad maaragtay awood u lahayd inaad munkarkan gacan wax kaga qabato oo gacan ka qabashadii dawlad iyo sulta iyo loo baahan yahay fabilisaani hadal raddi munkarka
ولله هلا يبغى أضل عندنا عيال ما قاعد الشيء ورب هلا يبغى حمانته هلا جوجي وهذا ذكرته هذا القيس ورجال معها وواحد لقيها ونفترض إن أما واحد قاسين يا من باتك بدل كلمة رئيسه آخر شيء فبقلبي وأنا قلبي كان عبور قلبي كان عبور وذلك أضعف الإيمان وأنا الإيمان كمثل هو ضعيف سنة من علماء كم دعوة ورياض السوري وعلمان ما كمل أيام تكسيرا أو إيشا مير وقصة كذا عندنا كسعودي من تكسيرا يا واحد بشكل مير قريبه كسوق على من يحاسكيس يملك قاضي نين كبر قانون دليرا وكسوق تيجي بورصة يصير العقد ويجي تقولي وكسوق المال ثلاثة مدرين أمر مديبة وقيلنا إيش وقت بورصة هل كان سيتابع إذا تبغى كم ضرب أبار مركنا مغنى من قضايا واري الأصوات بحي ورسلي بروك يعني انتو كوكلين ولا حولنا بالراحة كما مفتويري وهي سيدنا ونقصد على حاجات ما نقدر نديته وإحنا فاهمينه قيموا بها كأننا نعرف دعمنا ساس وعقول فتي ما كان لوضع التاكسي كسواد فلان حولا ما كان نلدح مرة هنا وتاكسي وملدح أنا نصعد دلال بيساريه وهويني كتير نيجي لو نيجي كذا والإنكار يكون عويلي محال قضايا أباها صار لهنس شو نيجي معانا أو نربحه وكل فناي أو بلاين وكل جاي أو بركة ورنا وكل قيمة يوابا بيه وهذا بلاين يكون عويلي محال أباها صار ويا شبكة وراها شموانا وحي ما يدينا يسوون جدي ترى الناس يقبلون مغلى هذا الكيل أولي والمحال أباها صار ويا ودناها يستاهل هو معناها أولي ودناها يستاهل قالوا مركز أولي وحن قرآن تكسي ما جدي حنقول لي أولي هداية أساء لنا قبل يسمى بها تسير ها بها يقدم الإنكار يقول على كذا تكسي قال العقل كامل العقل كامل ربو يقدر السنة وكل أخصها بدن تكسي يقدر قبوي معايا وحن كم بقايا عذابك إلهي إنه يقصوا دبو وتكسي أو نلقتي إن عذابك إلهي إنه يقصوا دبو وتكسي أسكن نلقى الدومان كم بقايا يقدر قبوي العقل كامل ماشي ممكن تجي عقد ولا ولا وأقول بدل ما تنوه قضية صعبة في السنة إذا نكاسب منكر كسور دين يعني وهو أتكيسن واي مركب مغلين نكاس وقالي عدوا لدغمي إلى والد كياه وهو اسكت جي سيدا سكر على الربا قفك إن منكر كوردي منكر كمركر رديس حشاد مالي ولو أقرب الناس هذا معايا الجينتو حشاد مجنو منذر ابن الزبير زبير بن عوام عراقي مركز واحد عمارة هو يسمى وصل عراق وكان مريا ومارتين حولا خفيفة أسماء بنت أبي بكر مركب الوين نبش معناها حولا أرجل ضعيفة مرضي بيساو تابت مركب وكان مرضي تابت مركز يتر أف ردوها عليه كسوة تركوا عليه المرضي سمرة ركوا عليه أركب حولا لأن هديك اللي يسوع عليه هو مركز يقول يا أمه هاي مرضني عورا لا يوم أكلي وعيس لها ملا حاجيك هاي مدرسة ما يصير عليك مرضي ويقول هاي مرضنا عورا لا يعرف ماي وروح يتر أنا أعرف ما هي لا يعرف ماي لكن وصفين ثابت إلا مرض ما كنت العسان هاي تلك هذه كل إيش لكن وصفين ثابت مركب وصل هذا مركب وصل هذا سو بجد وأقول كده هو ومع ذلك هو يقول عيسى أرنكي لو شفت واحد تروح على المرة وحكوا أيضا الربا قد يبدأ الهدف كلا إنها ولا جول سورة ما أنت ولا سكره كلية معها إن إله سبحانه وتعالى بريء تسعودها كلية معها ما أما هنا ترى واجب كي سرنا بتكلية معها وصح وغير مهمة لكن وحيابها هي هدف كلا قال له حاكم ده كو قرت منك صاحب المنكر كعين المنكر كيس كبر إن للي ما وحي معروف هاي اللي قلت هذا على هالليلة إن لا يرى منكرات كلا يرى حسب الاستطاعة إن خيرك أوبطه وضدك الحيسة وحيابها دل أو اللي قرب يكمل سيدا ويري المواد وطولها أمر المعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله
markuu ka hadlay taariifkiisu huwa waxa weeye amru bil ma'ruf idha dhahara tarku wa in asfar ma'rufki markay soo muuqato in laga tagay iyo in la iska reebo munkarki markay soo shaacbado in la sameeyay marka muhiimada huwa marka laga leeyahay kaliya ma aha inaad ilaahay tis'u dar la tanabarite wa in maaragtay aan la xumaantii la yaraato wanaagii u wato sidoo kale sidaan sheegnay waxa la budda ah marka maanta la iska reebayo wanaagga la isfarayo in rifqi iyo jilicsanaan iyo liin uu la socdo nabiga sallallahu alayhi wa sallam ma kana rifqu fi shay'in illa zana wala nuz'a min shay'in illa shana kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam yani majru rifqiga iyo jiljilaaca iyo maaragtay wanaagga wuxuu gudbinta kaasa ligaada shayga marka wanaag iyo loo gudbiyo wuu qurxiyaa markii laakiin adayg lagu gudbiyo ama ay adkaar u baabiya مثلا هذا waxyaabaha dadka masaajidda looga cawdo gabdhaha waxa kamid ah gabar baa laga yaabaa iyadoo suwaal wadata inay noo soo gasho timihii qaawanihiin indhaha lagu wada fiir ama nin baa laga yaabaa masaajidka soo gala asagoo silsilada ka buuxaan indhihii baa halmar lagu wada eegaya waxa laga yaabaa qaar inay dhahaan nahoy midaadka roy kaaga waxa iska bixi oo lagu qaybiyo yani khalaas qofkaasi uu ka carray marada ma kusoo noqon maxaa la rabaa laakiin qofka u yar waxa tirada walaalkaaga hawryar baa kaalay dan yar baan kaalay kaalay meel la gal adigoo cilmi ku ogey adiga asaga meel isla gal u sheeg waa sida sharaf maaha islaamku sida ma qabo sida khayr allah ku siiyo nin waxa taa wanaag badan wajigaaga ka muuqdo diin qofki waxa qalbigiisa naxariis baa gelis marka horena soo dhaweey waxa ku bilaabay hujumka oo wax la tijaabiyo loo ogaado hana is oranin qofkan waxa uu ogyahay maxaa ka gala haasni waliga lacalla inuu soo dhaweey رمضان كده بقى حد عليه مساجد كحافظ بيها ناس بقى كنت كنت نبقى من جل سلسلة وطا سلسلة قالب وطا إن كان الصلاة التراويح العشاء يفجر وهتاريها سبوها باشا صوتا مركا سي أبو الشيغان قرنواي مروا البوارة رمضان ساعدها المغيرة كالأرض يبوق بالمجري مروا البضب ولفضية هذا مساجد كشرفتو السيغي بتوصفوا بعيسى هذين دور هذين مركيين هذين كده من مهلكو يراهي سيارة وصفوا أبان جانس كوهد حفيز كان هذا وقوبة أنا هي واحد ما كان رأي هيجتي هذا وين أريد أن أشياء أقول ولا قضية النبي عليه الصلاة والسلام هي سلسلة دمارة الدمار كي وقعت هاي رب ما هي وقعت العرب وقصود دقيسة والشيخ وعيد على واحد نوه يستمر الذهب كليل ما أنا مهم به ماشي مكبحي إلا هذا نيكا مساعد كل ماذا سوى سلسلة دول مركا قضية دمار كوحا الرواء إن رفقي قاسوا الله سبحانه محايا يعني مركا ممكن ردين يسوي على هدي منكر كون كلمة لو مشاكل شيخ سلام تيمي وعليه ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر معناها حمانت أتفرس أتكرريس عفوا حمانت أتكرريس يوناجي أتفرس يسن كذا ما عرفت متكون لذا وحى الشيخ ابن تيمية كمان كي تترك المسلمين تبادين يمارس عمر قارقضي وخمر كدر بعبي markaas waxa nin la socday sheekh asaabi ma raga Allah hada munkar khamriga radin waraska dhaaf ruuxda ku mashquulsanaada maxaa yeelay hadii aan hada khamriga ka soo kaxay muuy oo maxay sameeyeen wax ka darada dhiigi muslimiinta daadinay marka inta dhiigi muslimiinta daadinayeen balooda loo mashquulsanaada marka xigmad buu baahan yahay macnaheedu marka munkar radinayso munkar ka weyn oo saliman iyadana waa muhiim maxaa yeelay maqsuudku wuxuu ahaa islaax waa maahay in ma aragtay hawla kala duwan waxaan arimo waxa jira marka xoog u saaran maanta xaaladaan dumarka maxaa xoog u saaran in qadiyadaas istaagaan maxaa yeelay waxa jira meelo fara badan oo gabdhuhu ay hawsha ka gali karaan ay dayaceen meelahaasna cidaan iyaga haysan joogin waxa ka mid ah aroosada wama adraakum aroosada waxay maxay u gashay aan hore halka waa ka sheegay akbar mushkila hadda مشكلة حتى وجود ضرر أو ما لها وجود ضرر رصدي ضدك أهل الدين قبل كده خاصة الدول وضدك ما كسر له ولا يعمل عليه ورصدك الموسيقى ولا جنبي قال هذا قوة كلام الموسيقى هي سهل جنبه والشيطان كمان هو يحرته يجي ورقة بس كده ده ولا هو يعني ما أنت ما بالله كسمة لكن أراسك النصر حينما هي ضدك أهل الدين كا ما كحمانتي ما دكار ما حمانتي كم وحمانتي كما ساعات بالو غاري
وأفرتها بالنبي قبله بذي وحمان سما وحمان كمدا منكر كي ودم عيني ما يمنس سعيد يبرام برقبين ما أنتنا الوقف لقادين يمين أمانة جيل له شيء يوحبك الجيل يعد حمان يمارس الله يا رسول الله الشيء كذا عليه markii inta la siimay aroos saddex reer ka kooban laba amaano mid laga tagay oo la yiraahdo anaga waa laga tagay halkii habeenkii la isku furo ka dhaca laajli maxaa qabilka loo amaano waxa kamid ugu daran raashinka israafta hadda dumarku ay daadiya 5 saac habeenimo ama 6 saac habeenimo ama kooda ya waxa la siinaya saxan ku jiro bariis iyo digaag iyo kaluun iyo sambuus iyo hilib gabadha qof dumarka ah ee xisaabeeyay inta soo cunto qowada isku cunaysa waati qashinka lagu wada iyo kaagi sidiisa asagoo ayaa bacaha inta lagu guraan soo inta soo munkarad ma ka dhacay limaada loo waayay dad idin kamida oo u xayxayto u istaaga aroosayna in khadkii lagu soo celiyo wadadii saxda ahayd lagu soo celiyo waxa hadda kaalada khayrkii masaajidka lagu dhigay si fiican buu dhacay balaaya laga dambaysiinay dhaanta hadda la keenay lagu dhaantayna إلا داتنا هذا واحد نقطة بلاد المسمى الشيخ الشريف يقول له عيالنا يا ليش هاي نسلم يعني أي ما أنتم وحسن أجرا وحال الربا مركز قبله إلى أن كان يستعوي به يوينك هرنا والله شيء مشكلته هي كسرة يوينك وما هكذا والله إذا ده يعني وحي الله وطري وياه لكن هو يلي واحد هذا نقول له هبين بلا عاوة هبين كان محاورة يعني عاوة هبين كذي قبل هذا دايم ما أنت وفرصت على إبنائك أنا أقول جميلك وطبعا كنا طبعا هكذا عيد الله ياك سيدي يقول لك الإنسان يقول باعتك ما يعاوى هبينك عليه أراس كما رأيت هذا تنطق الله طبعا يهدي له مخليه قول فلا يتبع هذا حالي إله سبحانه وتعالى مدها تقول بلادية طرح ما تبع عليه الصوالي أراس بوها ليش الله قال بارك الله qof marka maanta farxadiisa asagoo u jooga farxadaani aad ku dhimataa wax xumaan ilaahay ku dhex jira ka war qadiyada marka munkaraadka ay ka radin kareen oo istaagtaan mid guriyaha ka jira munkaraadka guriyaha ka dhex jira wax badan oo odayaashu ay sameeyeen baa ogtihiin in ay istaagtaan ardada dhexdooda wixii munkaraad ka jira in ay istaagtaan dumarka qaacada dumarka waa laga soo qayliyay yaa radin kara waxa ka socdo idinka oo isla mana hadashaan هو وقف في عساراته ويتكلم وكبها ولا اسكو حنتا حمد الله سو شيء ولا صعو ولا اسكو حنتا وانت عوشها المنص ولا اسكو قاره حرفه وحبال هو كان عسدا ورسوين با دحيا جناسي ومساد كسعد سو مو النبي عسل انه حبار قف مساد كدح جناسه ولي هو امر ان حبار يرادو الهي ربح كامسي فايده كلها وحاسبن baa ka socda wixii marka la iska radin maayo waa maartay saasa la soo hoganaya oo la isku jira خلاص waxaan ku soo foornay midii ilaahay uu ka digo ilaahay uu lahaa wasra alayhi nabaa alladhi aataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin rasuulka allah waxa ummadda uga sheekaysa qisadii ninkii reer bani israa'iil uga sheekay waa ilaahay qisadii ninkii reer bani israa'iil uga sheekay ninkaasoo maaragtay aan siinay xujjad aan siinay iyo hanuun iyo adil aan siinay oo markuu bartay oo diinta ilaahay barto khayrkii loo sheegay ilaahay ku kufriyay oo diinta tooray oo sida hadda aan sameeyay xaqii markuu qofka yaqaano tooray oo banaanka u geenaya markaas shaydaan qalbigiisa qabsaday markaas wuxuu ka mid noqday fasaara min ad-dallin al-halikin wa halaksan qofkii muxuu ku halaksamay sababkii ahaa mukhalafada oo khilaaf amarka rabbiga iyo shaydaanku wadicay markaas ilaahay wuxuu quraanku ku leeyahay ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذا مقدور نبي إلهي درجة إسلام كل مقالنا وحي آيات عسينا يا غير عسينا لكن ودي الدنيا جعل بكرعي هودي سورة ومن هذا الشيء عاو عنه هبين بانكولا وطمني تيمو راعي سوى وقف كحمانتي إلى تعالى مركز الشهوة سي يوحي مع معانك وآخرك دوت ضاعد إلهي وديني أمرك سنو خلافه إلهي بحكم مثال ذاتك نوع سقرة فمثله كمثل الكلب لله أمام القرآن ضمير بابوك marka ninka ilaahay intuu aayadihi iyo diintii hanuunkiisii dhabarkiisa ka tuuray ee ku dhaqmi waayay ilaahay wuxuu yiri famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath
haddaad cayriso iyo haddaad soo dhowayso iyo haddaad carabku laalaadin ay haddaad dharjiso iyo haddaad wax cayaarsiiso waa kan carabka laalaadiya sidaasa waxaa la mida midka aayadaha ilaahay ka dhex baxay oo kufri iyo maaragtay iyo cinaad ku dhex jira oo diiday dacwada ilaahay sidaasa ilaahay ku sifay subxaanahu wa tacaala markaasuu dalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وغشاكي بعد رسولك الله لعلهم يتفكرون أخبارتكم مليه وغشاكي وحي حجسها كنتها وحي مليه إلى إله القرآن كيسا أي كنت تدبرا وقاسوا إلى إليها ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فهذه مركة قد يد مركة وقد يد صدا بارك خطرت والله نبقى قفك منكرك مركة دبت عليها الرجسون عائشة رضي الله عنها مرة موكب مرضي بأردت السورة يكو أردت أما هويني عفو مرة لك بسنة واحد أردت وحصل الرأي والصليب يكم غلام مركيبه ويكون رجيسة اطلعي تور بيتي رسول الله عليه وسلم وطوري جراري قاسم بل اسكبها في صحابياتك اسكبها في إنهي ما أردتين أي ضدك ما أردت عالي الله الله حتى ويوانين جينا ضدك بلها ويوانين جينا وحيو شيء جينا وواحد يجي نور إلهي كبخ ومارك سيد رسول الله وحنا وريا لقى وري إمام مسلم وري زيد بن أسلم عبد الملك بن مروان أيوه الدرداء أيوه حقودري أو مارك وحيبها بدري لقوا مارك قرحي قدر فلما هبنها بيننا كمذا أيوه عبد الملك سوي استاجر وصاقع حقويا المركب إنه تكذور ربي مركز حقويا خادم كيسي وكسر يرضى مركز وحيد لعن يقول على محمد صلى الله عليه وسلم المدرداء والنقل سامي وأنا أكون بريء وحكتل سمعتك الليلة وأنا نظام أمير كده سمعتك الليلة بيتي وحن حالكم أغلبيتي إنا بالله على الضيق خادمك يمركب ويهرس أبو الدرداء أبا الدرداء ومن كده وحن كم أغلبيتي الصلاة يقول وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بوعي لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة نذكر العالم على تستمر كيف بدنتها نعم كويا لعنة عيال نذكر كلها نذكر لعانين تاهي لعنة بدن مركي لا تقول قيامها شهداء شفعاء من هون نحرس إلهي وحيوان جوا يكمل مركا قد يدرس مركا وحلو بهاي إن ضدك مسلمين تا أي آد وهو تلا وحاجة الشبهات كم الشبهات كالآد كم السنة والله أي عدد المسلمين تيسون حقلية ضد المسلمين ترى ولا ليه مارتي دع الخلق للخالق لكن ضدك إلهي سنة وأنا ضدك وكيلك محافظ ضمني ضدك قد يدرس وقد يد دقال والله سوى ضد المسلمين ترى ربوا إنه بربران مركي هلكا كتجا ضدك قالوا واحد اللي شذا آيات الله ولا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون هذا سيخلط فسرته ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نفتنا الواجب ديك ساري لا يضركم إذا ما نبقين يسوع من ضل إذا اهتديتم عبديها يومتا مركا يدوكوا هالمتا حق لنا والله لنا هذا سيدايك الواحد يفهمين ما هذا اللي كان جالس كسي دايك لذا أبا مركا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إمام أحمد باوح ورينا أبو أمامة الشعباني وحنوه من أبا ثعلب الخشني مركز واحد يقول كيف تصنع بهذه الآية آية كور سيدان ليلة مركز أي آية مركز يقول ويدي آية بس يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديتم ضد واحد موجود دليل اسكت عيدتكم على كيف روحها فريدة محل سمين وقيل أما والله لقد سألت عنها خبيرا والله وقيل ما أنت آيات أصلا خبيرة بوديس سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يوم وديبني وأنا آيات محل دورة وواحد يفهم إن حمانة الإسكدة ونادي الإسلام ما يبغي بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر نبي ما يجيب آيات أسمع عنها الإسلام ما أهل لكن هناك هو الإسفارة يا حمانة والإسكرية بها حتى إذا رأيت إلا أدركت شحا مضاعا بخيل لوه قاسمة شح وبخيلنا وانت روحوا markuu qofku waxaan bixin waayo xoolihii muslimiin dadku ay bixinayeen iyagii muusiin soo hor istaago oo waliba bakhiilnimada soo dadkii u hogaansama markaa aragto iyo hawa la raacay
هي ودنيا مؤثرة هي الدنيا لا دورتي تذكر مركز صفات ولا تام نقطة هي وإعجاب كل ذي رأي وإعجاب كل ذي رأي برأي وغفر برأييس ولا عدم النغض هركاس مركز أرنك قالوا فعليك بخاصة نفسي ودع الهوى مركز ومركز لفها قبل عربي سوري سياتك مك عوامت فإن من ورائكم أيام وحا يكذب هرتين وحا أمالمه الصبر فيهن مثل القبض على الجنب ما صار منك صبرها فتن كما أنت وحا نقول حجروي منك الصبر أو دين تسكون لقل أي لم يتهي سيدين دبق عندك وحشتوك للعامل فيهن مثل أجر 50 قفك العمل سماية وضدك كبدا وعليه أجرك كنت مخف ويعملون مثل عمل كده وكان سماية مركز بعيدا يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم كأكيد ما واحد ما متهي ضدك أصدرك مارك الجاران وفتن كهرك الجاران أجرك أي سمايا كنتم كهيريا ما هو لم يكن يا رحلة مسألة مركز أجر 50 منهم يعني كنتم أجر ذلك كم سأضرت النبي بشارة النصر بالفعل قف مركب دينتي سكون في وقت الزمان فتن يبلايات وأيمان يسوع إن قفكم ما رتقوا لين ما دار الكاس أو ما رتقي ولما خاصة الله المعروف ونهى عن المنكر أي تهي قضية مهم جدا وأدعو إلهي سبحانه وتعالى عودان أتكهلسي إلهي سبحانه وتعالى أتكهلسي ديمانتي سيصح شيء حمانت لكو يراني سوناكينا وكوكربيو أدينا لست عليهم بالمسيطر ضدك ما رتقي واجب عمله إلى ضدك قبصته ومدح كفر شعب يحب قليسه لكن وحشر بالوي سيدا درت يبقى سفيان الثوري والويدي وهذه أيامر الرجل من يعلم أنه لا يرضى منه قف ميو فريا ولكن قف وهي مسكى أقبلني نعم لها معايا يكون ذلك معذرة الله عند الله تعالى هذه خاصة ما هي مكافأة هذه أوشك يعني إلهي هرتيس عذردار إلى يكون نقطة أيال ربا هذه هاسكون دايم مارتي محافظ محيي وحبي مراني سيدوك قد يذكر الشيطان وكان العين كان جرته سيدي أنا وحمان أوريبي كرا وأنا أفريكا أنا وأقف ذنبي لا ورفتي جاي جابي يدرفتي جاي دوام أنا الشيطان كسر كذا وقف وعقله وأنا ذنبي لا وهذا ذنبي قالي إجابة تامة حمان تمريبي كرا رب سعيد بن جبير بقول عليه عرفت سيدا سوكرا هدي أن ينادي الأسفر الحمان الإسكر ذي يا إلا وحكم ذا اللوائي هذا القفنا ما رتك وراك مفر الحمان الغير حسن البصري أي أبطار بن عبد الله بن عكوين عند أصحابه ورواني بذك صاحبها مركاشي وحن كم بغايا إنا الشيء وحن سمين وبيراه بدرنا لنا رسول بالهدوه وعقول يقفكم وروح أنا عن سمين يساوي الشيء قابل تاسع كم بغايا يرحمك الله حسن البصري يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول وانت صحبان درداء ما شيء كان يقول شيء يسميه ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا والله الشيطان من جعل الله إنه قد كلها وكان لا يعيب هذا والله ما شيء محالي هذا هو مسمين سيدي مركبوا عليه فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى عن منكر أرنك مركب عدم قف ضدك وناك فرنا مهر قف ضدك حمان كريمان مهر أنا ضدك هدي أنا مارك سوعدين لهين يا منك ذنب الله وحشين لها بعدنا محمد عليه السلام النبي تكلم اليوم محمد عليه السلام صومنا قريب يا ما أنت ذنب الله يا شو وحشين يا مرك أدي أنا أدي وحشين الله نفسي على تقصير وقابي أرنت سيدا ما هي أرنت واحد إله سبحانه وتعالى وحي ونام الكفار ضدك الآذار تأمر شرط كمان ما كررت سيدا صار شيء منينا قال مارتين كنت لك الشوط إن إسلام كأد بوس كدش وهاي أوراكا إن هذا أرك هذا يا يسموه سيدا هذا البوشة لعل الله كلمة بسيطة أقف ما الكتب إن إله سبحانه وتعالى وأجرك عسيادور بغين ودرت الكسوها منه كلمة أدسكته فتي وأتشافتي إن إله الكسوها منه صلاة تكو أداة رابع عندنا هذا وأنا تدريب ولا صومها لأن هي الله نسومه كجرتا كان لو عليه مركي ما وش عليه ويسوي نقدر نساعد يسوي لكن أنا المشكلة إني نحاول إيش الله نفيسه هو يسوي شغالي حماد تسكبر ريبه مركي حماد تسكبر ريبه ويا أيام ما رحت شقد يوم نفس هذه سهل وروح المقارنة سنين شقد لا يعي مشاكل وكذا وسيد النبي عليه الصلاة والسلام كتب مامي سيد الدون سار
oo laba dabaqa marka kuwa dabaqa hoos jooga ay damcaan inay biyo raadsadaan bay way tashadeen way yiraahdeen walaal intaan kor intaan aan biyo raadsanayno dadka aan dhibayno ma meeshana intaan doonta dhinaca ka duleelino aayad bada biyo ka soo dhaasan kuwii kor way ogaadeen haddaysan gacanta qaban kuwan aysan warheedahay ka jooga haddaad doonta dhinaca ka jeexdaan biyaha na soo galay kulligood waa degay doontii waa wada degaysa laakiin markii gacanta qabtaan oo yidhahdaan biyaha kor usoo doonta iyagiina wadbada kuwana wadbaadinaya waa sidaa marka haddii maanta la iska reebi waayo wanaagana la iska reebi waayo mujtamac oo dhan u baaba'aya sidaa darteed dardaarankayga iyo nafteeda iyo tiina uga daarma waxay tahay inaan ku dadaalo qadiyadaas dhexdeennana laga bilaabo shayga ugu horeeya ee aad ka bilaabi doontaanna gabdhow iyo dumarow ay noqoto in aroosyadaan wax laga bedelo khaasatan maanta ma arka dumarka weyne xaggay ku jiraan qadiyadaas waa risaalo aan idiin dhiibayo in dib aad isugu noqotaan dumarka ahlu masaajidka aho ahlu dacwada aho intaad dib isugu noqotaan oo guddi arrinkaa u xilgaara samaysaan war xumaanta iyo munkaraadka aroosyada iyo guryaha iyo masaajidda iyo goobaha la isugu imaada ka jira qadiyadaas inaa qadiyadda ugu horeysa oo laga qabta ay noqoto insha allah ilahi subxaanahu watacaala wuuna badbaadinayaa mujtamaca oo dhan ilahi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa wixii aan sheegay in ilaahay ikhlaasku naga dhiga naguna anfaco wax saxa haddii aan sheegay waa ilaahay mahadiis adiga rasuul xaggiisa ka ahaadeen wixii khalada aan sheegay oo nafsi oo shaydaan ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisana bari bay ka yihiin dambidhaafna waa weydiisanaya subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk